Mahesh Mehta wuxuu weydiinayaa su'aal Dr. Zakir Naik oo ku leeyahay waxaan booqday 15 wadan oo Islaami ah. Intii aan arkayna xilliyada salaada way kala soocan yihiin dumarka iyo ragga, laakiin marka la dawaafayo xajka waxaan arkay dumarka iyo ragga isku darsan sababta ay ku dhacday ma ii sheegi kartaa. Sidaas ayay u dhacaysaa su'aashiisu. Jawaabtuna waa Dr. Zakir Naik ka bogasho haboon. Damascus, Masad, men and women Salah area are different, but during the Hajj times, Mina, Muzdalifah, Arafat, Safa, Marwa, and when doing Tawaf of Kaaba Sharif, men and women are together, and Dome of the Rock and Al-Aqsa Masjid, Baitul Muqaddas, in Jerusalem, men and women are together. Why? mudane Mahesh wuxuuna weydiiyey su'aal wanaagsan. Aniga Mahesh Mehta waxaan garanayaa muddo badan markii la aasaasay IRF. Maasha Allah, inkastuu yahay qof aan muslim ahayn, wuxuu qaatay canjalada video markaan bilownay sanadkii 1991. wuuna kulmiyey wuxuu kulmin karay xilligaa waxaan dareemay inuu daawaday canjaladihii ay daawadaan muslimiintu. Su'aal buuna weydiiyey markii uu aaday meelo kala duwan oo caalamka ah. Meelaha ugu badan, meelaha lagu tukado salaada ragga iyo dumarkaba way kala baxsan yihiin, laakiin mawsimka xajka markaad joogto Makka ama Mina iyo Muzdalifa, meelaha lagu tukanayo ragga iyo dumarku isku darsan yihiin mana kala baxsana. waxa aanu fahmi karin meel kasta xitaa Makka iyo Muzdalifa iyo Mina isla halka lagu tukanayo nafteeda, laakiin wadciga ka jira halka tusaale ahaan markaad aado magaalada Makka waxaa jira rugni ka mid ah arkaanta oo muhiimka ah waa dawaafka. markaad dawaafayso ma helaysid meel ay ku kala baxsanaan karaan ragga iyo dumarka dawaafka. isla sababka marka aan dawaafayno waxaan arkaynaa labada jinsaba inay isku darsan yihiin, laakiin markii dawaafka laga dhammaado sida caadiga ah ragga iyo dumarkaba waxay leeyihiin meelo kala duwan. xitaa Makka marka dawaafka la dhammaysto oo la gaaro xilliga salaada, dumarka qaar ma awoodaan inay u noqdaan meelahoodii gaarka ahaa. darteed waxaa jira xaalado qaar oo ay dumarku istaagaan meelihii loogu talagalay meelaan ahayn. isla sababtaa darteed waxaa jira marka xaalado aan arkayno dumarkii oo jooga halkii loogu talagalay ragga, laakiin dhab ahaan waad arki kartaa markaad timaado dhanka kale, yacni maahan meesha dawaafka, waa dhanka kale. waxaa kuu suuragala inaad hesho meelo gaar u ah dumarka iyo meelo gaar u ah ragga. xaaladaha caadiga waxaan leenahay albaab aan ka galno oo soocan. xaramka waxaa jira meelo gaar ah oo ay dumarku ka galaan, laakiin markay aadayaan dawaafka qaar baa qaarka kale ku darsamaya, laakiin marka la tukanayo salaada waa qasab inay aadaan meelahoodii loogu talagalay, laakiin waqtiga ayaan u ogolaanayn mararka qaar inay gaaraan halkii loogu talagalay. markaas ayaad arkaysaa xaaladaha qaar dumarkii oo ku darsan ragga meelaha qaar weeyaan. si lamida Mina, sidoo kale Muzdalifa. xitaa Muzdalifa iyo Mina ma arkaysid nin iyo haweenay hal saf wada taagan, sababtoo ah waxay ku kala faafayaan mandiqooyinka waaweyn, sababtoo ah qoyskooday la imaadeen. sidoo kale xaramka iyo Makaba qoysaskooday la imaadaan. la imaashahaas qoyska darteed waxaad arkaysaa kooxo si gaar u kala taagan, laga yaabay mararka qaar inay boqolaal gaaraan. haaf waa ragga, haafna waa dumarka. waxaa adkaanaysa marka qoyska inay hal meel wada joogaan, balse dhammaan masaajidda kale, masaajidda oo yar darteed waxaad arkaysaa meelo qaar oo raggu meel gaar u ah in laga galo, meel gaar u ah in laga baxo. marka waxaa u suuragal inay qoysaskooda bannaanka uga soo tagaan. laakiin Muzdalifa iyo Carafaad booska ayaaba weyn, boqolaal dad ay ku filan tahay. qoysaskuna way imaanayaan si ay xajka u gutaan markay joogaan Carafaad, Mina, Muzdalifa. sidaa darteed xitaa meelahaas marka ay tukanayaan salaada ragga iyo dumarka hal saf ma wada istaagaan. waxaa jira meelo soocan, laakiin meelahan ku kala faafsan mandiqada. isla sababkaas waxay u muuqanaysaa inay tahay mid soocan. laakiin haddaad aaddo masjidka Khayf, Mina ayuu ku yaalaa, ama Carafaad, masjidu Namra, waxaa jira kulamo soocan oo shaabaha si dhammaystiran masjid kastoo kale. jawaabtoo gaaban, markay ku tukanayaan meel kulan oo weyn waxaa adkaanaysa in qoysasku isla yimaadaan. waa ilaa inta badan ragga iyo dumarka waxaa qasaba inay kala socnaadaan, howlahoodana loo kala fuliyo. sababtu waxay tahay si ay salaada xoogga u saaraan una khushuucaan Allah subxaanahu wa tacaala dartii, iyo si loo kala saaro labada jinsi. waxaan rajaynaynaa su'aashaada ka jawaabo walaal.